gobolka gobolku waa gobol ballaaran hadda wuxuu ka kooban yahay 7 degmo 6 ka mid ah webi baa mara marka laga reebo degmada ceel waaqmoobi waxa laga yaabaa arrimahaas dadka qaar inay isweydiiyaan yiraahdaan magaaladan baa webi ma mare maxaa loo leeyahay anu degman ka hadlay magaalo ma degmo iyo magaalo waxa la rabaa in la kala barto dhalinyaradu waxa laga yaabaa maamuladii iyo waagi aad uma soo gaarin inay hadda akhris ku bartaan ma ogiye marka degmo waa inta degmadaas xuduudeeda laga xukumo baa la yiraahdaa Soomaalidu hadda afka ajnabi ay jeceshahay oo ay tiraahdaa maxaa laga wadaa marka ajnabi ugu fasirtay kartaan yiraahdaa masaasa laga wadaa marka waa district saasaad ku garan doontaan ama naaxiya waa yahay marka gobolka intaan uga baxo waxaan soo dhacayaa magaalada Garbaharey oo ah magaalada madaxda gobolka asalkeedii hore Ingiriis baa degay qarnigii 19aad yaa muddo deganaa Ingiriis waa ka guuray intii ka dambeysay magaaladan waxaa district iyo magaalo madax gobol loo magacaabay 1973 ayaa dawladii kacankeed Maxamed Saad Barre hogaaminay u magacaawday magaaladan waaga Soomaalida jirtay oo hadda dalkii markuu burburay qolo walba degmooyinka meesha ay joogto ayaga madax ka ah madaxnimadaas oo meesha rabta gaarto magaaladan ninkii ayada magaaladan tuulanimo ma soo marin town planning bay leedahay ayadoo banaan baa la cabiray saad ku aragteen magaaladu jidad waaweyn bay leedahay jidadkaas waaweyn naqshad baa lagu sameeyay ninkii cabiray oo Soomaaliyeed wuxuu ka yimid gobolada waqooyiga Allahu naxariisto uu dhintay dadka qaar baa yiraahdaa Faysal Ali Waraabe engineer ka taariikhdaas waa been Faysal kama Faysal wuxuu engineer ka ahaa xarunta booliiska ayuu dhisay engineer ka ahaa alxamdulillah la oran jiray ninkii magaaladan naqshadeeda sameeyay uu dhintay kumanratori u horeeyay magaaladan loo magacaabo waxa la oran jiray Umar Maxamed Guuleed waqooyi uu ka yimid asaguna kaashan la sare ciidamadaas luubtu ahaa oo wadaad ah dhiisigi u horeeyay magaaladan gudoomiyada ka noqda Maxamed Cali Xaashi baa la oran jiray galdoga buu ka yimid sindiki u horeeyay magaalada tan oo sindika ka noqda Axmed Nuur Aandeer baa la oran jiray Allahu naxariisto waa dhintay magaaladan sidaas ay hortayay ku soo socotay waad aragteen magaalada tog baa dhex mara togaasu biyaa socdo qulqula sanadkan haday ahaayeen 8 kilomitir biyahaas ay socdeen hal sano markii la joogo 1 kilomitir baa ku darsama ama nus kilomitir baa ku darsama toga webiga dhex mara luqadahan hadda la isticmaalo toga iyo ay yiraahdaan dry river waxa lagu magacaabi karo maxaa yeelay waa qoyan yahay 12 bisha biyaa socda asaga marka nooc webi oo kale uu egyahay magaaladan waxbarashadeeda waa waqti hore soo jirtay waagii la aasaasay dugsiye yeelatay dugsi sare kulleeja ay laan jirtay raggii dugsigaas ka baxay darajooyin badan bay gaareen oo qaar caalami hay'adaha adduunka caalamiga ah u shaqeeyay hadda intii burburku jiray
waxay yeelatay magaaladaanu waxbarashooyin xoogaa kala dadban waxbarashada maadiga ah waqti oo iyadoo ruuxeedu diinino ay ku jirto waxaa ka dhisan laba dalladood ama laba hay-adood oo waxbarasho oo private ah oo dugsi hoose iyo dugsi dhaxaba leh dugsi dhexe hoose iyo dugsi saraba leh oo laga najaxo aad wax looga barto dad deegaanka u badnaabaa arrinta qabanqaabiyey waqti fiican bay soo socdeen kaalimo fiican bay ka galaan waxbarashada waxaa jira oo kale dugsiyo kuwii dowladda ka soo jeeday ah oo lagu dhigo inta badan luqadda Soomaaliga oo ilaa dhowr iyo 30 primary school oo districtka ku firirsan ayaa jira oo ilaa galaaska 8 ku eg ayaguna waa jiraan waxaa intaa garab socda waxbarasho diin iyo luqa carabiga isugu jirta oo xalaqaad ah oo masaajidda lagu barto iyo madarisooyin yar yar oo kale iyo qaybta ugu horeysa ugu muhiimsan oo ah dugsi quraanyada oo ayaguna aad u tiro badan oo waxbarashada kamid ah qaybtaas oo hadda lagu barto maxaan ku raahdaa diinta iyo luqa carabiga waxay gaarsiisan tahay heer jaamacadeed inkastoo aan u malaynayo inaan hadda jaamacad aan weli loo diiwaan gelin haddaan hadda intaan maqla ama machad rasmi ah in loo diiwaan geliyo ma hubo marka waxaa lagu bartaa waxaa carabtu ay aalada yiraahdaan oo kale iyo kutubta diinta cilmiga xalaqaadka lagu bartaa jaamacada uu ka sareeya anigu yaraanteedii waxaan wax ku bartay masaajidda xalaqaadkaas jaamacadna waan galay diini ah oo tagay kutubtii aan ku baran jirnay halkaas ayaa in yar muqarrarna looga dhigi jiray in yar oo kamid ah yaa la baran jiray sanadkii annagana xalaqaadkana waxaan ku khasbi jiray inaan alfiyat ibn malik inaanu xifdino yaa lagu talin jiray